بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخواني، كلمة عاوة أن إذن لو ذاقيو وكلمة دaba socota kelimad aan jeediyey habeen hore ama shalay oo ay dhici karto inaad aragteen oo ah kabid iyo dardaaran xaaladdu meesha ay marayso. Shalay waxaan maraynay haddii aad joogto magaalo xanuunka viruska coronavirus uu ka dhacay maxaa kula gudboon, laakiin maanta waxaan joognaa magaaladii aan joognay wuu ka dhacay, maxaan samaynaa? Waxaan rabaa dhowr dardaarana iyo dhowr talo ah inaan meeshaan ka soo gudbiyo. Horta marka koowaad waxaan ognahay iimaankeenna iyo yaqiinta aan rabbigeen ku kalsoonnahay baa waxayna baraysaa inaan aaminno hadalka uu alla yiri qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lanaa huwa mawlaana wa cala allahi falyatawakkal ilmu'minuun. waxaad dhahdaa nebi allow nama asiibayso naguma dhacayso, lan waa weligeed naguma dhacayso ilaa wuxuu alla noo qoray ma ahane. asagaa boqorkeenna mawlaheenna midkana leh oo na ilaaliya oo na xifdiya, asagana qofka mu'minku talada ha u dhiibto. waxaan ognahay geerida iyo noloshaba allah bixiya. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إخواني، waxaan rabaa marka dhowr talo oo yar inaan bixiyo. magaalada aan joogno ee Minneapolis iyo gobolada Mareykanka inta badan iyo caalamka intiisa badan xanuunka coronavirus baa ka dhacay. waxaana la gudboon inaan samayno saddex arrimood saan uga gudubno mixnadan iyo mushkiladan jirta. kow, marka ugu horeysa qofka mu'minka ah asagoo aaminsan qadarta ilaahay iyo iimaanka uu ilaahay rumaysan yahay inuu haddana naftiisa ku ilaaliyo oo uu ku waardiyeeyo adkaarta iyo qur'aanka iyo arrimaha ay ku soo aroortay xifdi ilaahay ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ballan qaaday qofka akhrista inuu ilaahay ilaalinayo. waxaa kamid ah adkaartaas, waxaa kamid ah qofku inuu akhristo subaxi iyo galabkiiba adkaaru sabax wal masaa, dikriga subaxa iyo midka galabkii la akhristo, adkaaru nawm markaa seexanaysa inaad akhrisatid, adkaaru lkhuruuj min albayt markaad guriga ka baxaysa inaad akhrisatid, markaad guriga soo galaysa inaad akhrisatid, subaxi iyo galabkii inaadan marna ka tegin aayad kursi oo 3 mara, qul huwa allahu axad oo 3 mara, birabbilfalaq oo 3 mara, birabbinaas oo 3 mara, iyo ducooyinka nebigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri qofkii yiraahda musiiba kuma dhacdo. waxaa nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri qofkii dhaha a'uudu bikalimaati llahi taamaati min sharri ma khalaq, ilaa meeshaas uu ka guuro hadduu meel degay oo uu akhriso 3 mar ducadaas ama uu akhriyaba xadiidku wuxuu leeyahay hadduu akhriyo markuu degayo musiiba kuma dhacdo ilaa uu ka guuro, dhibaato kuma dhacdo. wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam qofkii dhaha bismillahi alladhi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samii'ul aliim 3 mar galabkii musiiba kuma dhacdo ilaa uu ka galabaysto. galabkii hadduu dhahana ilaa uu subaxi ka gaaro musiiba kuma dhacdo. wuxuu nabigu dhihi jiray sallallahu alayhi wasallam allahumma inni a'uudu bika min albaras waljunuun waljudaan wa min sayyi'il asqaam. marka waxaa la rabaa inaan akhrisano a'uudu bikalimaati llahi taamaati min sharri ma khalaq 3 mar subax iyo galab. inaan akhrisano bismillahi alladhi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samii'ul aliim 3 mar subax 3 mar galabkii. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. إن أخرسنا صدح صورتها الذين شاء آيات كرسي ذا قل هو لا بربناس لا صدح مرة. وحان روا مركا إن هل إذا كبر على الجيو أذكرتها مركا أذيك أخرسنا يسيد إيا مركا عرورت هذا وأخرين يسيد قابك أظن يسوي كل دوانانا يعني مركا عرورت وأخرين سلبا مده إن عرورت أنت المدح حق عنك كسرت آترا هذين أنك نعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا اسمه بدليس نعوذ وحوي وحن كما ينقلنا أعوذنا وحن أنو كما ينقليا
markaad caruurta ku akhrinaysid nacuudu dheh markaad caruurtaada u ducaynaysa waxaa tidhaahdaa allaahumma innaa nacuudu bika min albaras waljunuuni waljudaami wa min sayi'i lasqaam dheh ilaah waxaan kaa maangallay dheh markaad aayad kursida iyo falaq iyo barbinaas iyo wala ku akhrinaysidna madaxa gacanta ka saaro ku akhri waxaad kaloo samayn kartaa suu nabigu samayn jiray sallallahu alayhi wasallam meeshaad dheelayd acuudu inaad tira intaad madaxa ka saarto uciiduka aad dhahdi ama uciidukum bikalimaati llahi taamaati min sharri maa khalaq waxaan idinka magangeliyey alle wax kasta oo shar la shartiisa ducooyinkaas marka aan akhrinayno qalbigeena inagoo aaminsan inuu alla na xifdinayo fallahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu raaximiin alle asagaa midka wax xifdiya mid kasta oo naxariisan asaga ka naxariis badan qul lan yusiibana naguma dhacayso ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wa cala allahi falyatawakkal almu'minuun waa suuratu tawba aayadda 51 weeye intaasi adkaartaas inagoo yaqiinsan inaan xifdi ilaahay ku jira aan akhrino masalada labaad oo muhiimka waxa weeye waxyaabaha dhakhaatiirtu ku taliyaan iyo dadka caafimaadka ku takhasusay ee asbaabta maadiga aan qaadano dadka ugu horeeya noqono dadkeenu waa dad kala daadsan communitygeenu arrinkaasi yaan leenooga faa'iidaysanin oo xanuunadu nooga faa'iidaysanin annagoo alla isku halaynayna haddana sababka aan qaadano oo koow aan inuu ku dadaalo maxaa asbaabtaa ka mid a sida la sheegay gacmaha inaan iska dhaqno inaan gacmaheeno dhaqnayn aynaan sanka iyo afka iyo indhaha iyo ku taabano waa meelaha oo viruskani dadka ka bilaabo baa leeyahay in aan dadka ka fogaano markaan la hadlayno inaan salaanta iska yarayno inaan isku neefsashada dadka kala fogaano haddii qof jirado isbitaal galo jiradaasi ku dhacdo in aan booqashada la badin la iska ilaaliyo talada dhakhaatiirta in la qaato ay dhahaan ma u fiirsada waxaa jira walaalayaal xanuunkan yaanaa fududaysanin dad badan buu adduunka dilay yaynaan fududaysanin yaynaan communitygeena ka dhigin dad iska baaba ah oo masaakiin oo xanuunkii aan dan ka lahayn dadkeena waa ay noqdaan dad baraarugsan oo caqli leh oo diyaarsan oo is ilaaliya oo dadka ugu horeeya noqda asbaabta maadiga ah marka la qaato waana waxa sharciguna amrayo nabiga sallallahu alayhi wasallam dhihin ritigaagana dabro allahaagana tala saaro nabiga sallallahu alayhi wasallam haddaad daacun magaalo ku maqashaan hagelina haddaad midaad joogtaan oo ku dhacana ha ka cararina waa hadalka cumar uu nafiru min qadarillah ilaa qadarillah waxaan u cararaynaa qadar allahna ka cararaynaa annagoo alla ku kalsoon oo qalbigeenu ku degan yahay inuu rabbigeen yahay oo uu xifdinayo haddana asbaabta maadiga ah waa inaan dadka kale uga hormaro labada kaan oo ka yahay iimaankeena iyo diinteena iyo alla taala saarashada midna uu yahay asbaabta inaan qaadano waa inaan leenooga hormarin dadkeena fiiri dad baa waxay ku leeyihiin warqafkii hebelaha wuu baqay gacmihiibuu wax gashaday gacmihiibuu dhaqayaa maanta dhan sankiibuu iska ilaalinayaa wejigiibuu wax gashaday salaantiibuu diidayaa arrinkaasi ha ku kadsoomina waxaa la rabaa in waqtigan hadda la joogo salaanta mar hore baa wadankan dadku joojiyeen magaaladan joogno gacanta ah inaad joojisid oo maxaan ku dhahaa qofka aad distance aad ka fogaatid ilaa 6 tilaabo oo kale aad ka fogaatid oo aan la isku neefsanin oo aad asbaabtii qaadatid oo qofkii qaatana lagu dhiirageliyo ee aan lagu jeesaysan ama aan la dhihin wuu baqayaa rag waxaa la sheegay dhahaya oo masaajidii aan rabnay inaan ku dhimanno bay culimadu naga xirayaane arrinkaas ku kadsoomina tala saarashada alle ma diidayso inaad asbaabta qaadato waxaa jira wax la tawaakul iyo tawakkulku waa adoon asbaab qaadan inta iska fadhiisato inaad aamintid wax kasta inay ku ilaalinayaan maya tawakkulkuna waxa weeye inaad alla tala saarto asbaabta alla uu sababaha ka dhigayna inaad ku dadaasho oo dadka qofka ugu caqliga badan meeqa aayad quraanka ku soo aroortay wa khudhu hidrakum digtoonidiina qaata intaas baan rabay inaan idin la wadaago masalada ugu dambaysa saddexaadna waxa weeye hadday dhibaato dhacdo dadka dambigoodii baa lagu ciqaabayaa adduunkaana ilaahay ma dulmiye dadku ayaga naftooda dulmiyay aan ilaahay u toobad keeno oo u cararo albaabka ilaahay aan u cararo aan ilaahay u laabano
aan ilaahay barino aan ilaahay u ducaysano aan dembigeena ilaahay oo aan dhahno dunuubteenna ha noo qabanin waan kuu toobad keennay waan kuu soo laabanay ilaahayow naga toobad aqbal ilaahayow ha noo ciqaabin dembi qeyrkeenna aan ku celcelino waxaan ilaahay ka baryayaa tabaaraka wa tacaala ilaahay inuu na xifdiyo ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا اللهم استر عيوبنا وأمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وفي دنيانا اللهم عافنا في ديننا وعافنا في دنيانا اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ أزواجنا اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ بيوتنا اللهم احفظ مشائخنا اللهم احفظ آباءنا اللهم احفظ أمهاتنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا إلهنا إلهي إلهنا إلهي إلهنا حفظ إله أولادنا نو حفظ إله يو دمرك نو حفظ إله أبياش نو حفظ إله هوينك نو حفظ إله يو عروتنا نو حفظ إله يو مالك نو حفظ إله غريها نو إلهي إله مساجد إيه مراكز نو إلهي إله ودن كان نو إلهي إله ودن كان نو إلهي إله تولوين كان نو إلهي إله ضد كان مسلمين تأها لا إله إلا الله نهي إله ميل جوجان إله ضد كان نو حفظ إله وحن كبرينا إنه سإله نوه لاجن مصيبة عامة وسإله نوه لاجن وحنا أجاتان ودنبجا تذكر أي سمايا درتود عقابته ويدعي عذركو إيمان عذركو وتيا ونمان لكن واحد كل بشارة ستان إن إلهي قفكي مصيبة كل على السجع أسباب تقاتينا إنه يشهيد أجر كيس ويهاي دم الأفنى إلهي وقدر جيو قفكي صبرا أو كبد بعدنا إن الله تبارك وتعالى ودم الأف وقد جيو قفك صبر أو كل عنا إنه أجرك هليو مر والبا ما خساريسيد والولك يبغدين تبضن يعبسيدا أنا سكيل على إنه قال قرآن كوحشيجي أنت غيرك كحان بو إلهي أنت غير اللي جماعة عرضي كرو لكن أن إله كوكر صانانه قلبي أنا أن دتشسنه إلهنا وحن كبرينا إنه صنو عقابين ذنوبتنا مصيبة أنا أودي كرنا إلهي إنه صن نوكين بإله كبرنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.